gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo ay weheliyaan saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbigaasi ayaa xadhiga ka jaray xarunta dhexe ee xisbiga mucaaridka ee wadani uu ku yeelan doono magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxaana ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag ee xisbiga wadani Boqor Faysal Cismaan Faarax Baraag iyo Nadra Cumar Jabaabul waxaan ku faraxsanahay inaanu yeelanay xaruntii dhexe ee magaalada iyadoo diiwaangelintiina socoto dhammaan taageerayaasha xisbiga waxaan u sheegayaa in loo furay laba xafiis mid dhexe iyo mid hoose ha yimaadaan xarumaha hana ka soo qayb galaan waxaan nasiib u yeelanay iyadoo diiwaangelinta ay ka socoto inuu gudoomiyaha iyo waftiga ballaaran ee la socdaan ugu soo gaaraan degmada Ceergaabo xaruntii gobolka Sanaag oo cusubna ay daahfuraan oo iyagu ay iba furaan waa nasiib maanta aanu dheernahay dad badan gudoomiye ku soo dhawow xarunta cusub ee gobolka Sanaag noona daahfur gunaanadkiina waxa halkaasi ka hadlay oo si rasmi ah xadhiga uga jaray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani aniga ku hadlaya magaca wafdiga aan hogaaminayo iyo madaxda gobolka Sanaag ee xisbiga iyo mas'uuliyiintiisaba iyo taageerayaashiisaba waxaan ku faraxsanahay inaanu xadhiga ka jarno xarunta cusub ee xisbiga wadani ee magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag bisnekeenu qabanayna bismillaahir rahmaanir rahiim Cabdirasaaq Sugulle CBA TV Ceerigaabo